kooxda dhiig-miiratada ah ee Daacish waxay saaka aroornimadii hore weerar fulaynimo ah oo fashilmay ku soo qaadeen fariisinka ciidamada difaaca Puntland ee deegaanka Dharjaale ee gobolka Bari, halkaasi oo bardhaxaad u ahayd howlgalka ciribtirka kooxaha khawaarijta ah ee inta badan ku dhuumaalaysta buuraleyda ka tirsan gobolkaasi Bari. Weerarkan oo ay ciidamada hore uga feejignaayeen ayay ku bilaabeen kooxahani ismidaamin iyo qaraxyo wada jira, balse waxba kama dheefin oo meydadkooda ayaa daasan maanta hareeraha fariisinka deegaanka Dharjaale, iyagoona ku hungoobay ujeedadoodii ahayd fashilinta iyo waxyeeleynta howlgalka ciribtirka kooxaha khawaarijta, waxaana halkaasi lagu dilay 8 ka mid ah kooxdaasi khawaarijta ahayd una badan ajaanib kala duwan. war qoraal ah oo goor dhaweyd ka soo baxay taliska guud ee ciidamada difaaca Puntland ayaa lagu yidhi ciidamada howlgalka ciribtirka argagixisada Puntland ee ku sugan deegaanka Dharjaale ee gobolka Bari ayaa saaka fashiliyey isku day weerar argagixiso oo ay soo maleegeen kooxda dhiig-miiratada ee Daacish, waxaana halkaasi ciidanku ku dileen dhammaanba kuwii weerar soo tegay una badnaa ajaanib. Gabagabadiina qoraalkan ciidamada difaaca Puntland ayaa lagu yidhi ciidamada ciribtirka argagixisada Puntland ayaa intaasi kadib hore ugu ruqaansaday qorshaha howlgalka ciribtirka argagixisada ee buuraleyda Calmiskaad iyo Calmadow. Maalmo ka hor ayay ahayd markii ay Puntland ku soo bandhigtay deegaanka Dharjaale barbilowga howlgalka ciribtirka kooxaha argagixisada ah ee ku dhuumaalaysta buuraleyda gobolka Bari, halkaasi oo diyaargarowgoodu in muddo ka socday. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garowe.